sii duwan yahay dhalinyarada tan siday hadda yihiina lagu diiwaangelinayaa da'day jirto da'day jiraan sax ayaa la diiwaangelinayaa sidaas ayuu barnaamijka ku soconayaa mustaqbalka dambe in Soomaaliya ay adduunka la mid noqotaa laga rabaa oo sidii macnaha loo soo diyaariyay adduunyada u diyaariyaan dadka oo kale in noqotaa laga rabaa xiriirka Soomaalida kubadda cagta waajibaadkiisa u dhaartay waxa kamid ah in uu qabto dhalinyarada yaryarka inuu gaarsiiyo meel waxaan rabaa marka anigu sidaan hore marar badan u sheegay kubadda cagta wax mucaarad ah ay leedahay ma jirto kubadda cagta waxa la qabanayo wax la isla yaqaan waay inaad riyooto way fiican tahay laakiin riyadaadu inay kugu geyso inaad ummadan halaagto waa wax khalad waay haddii ilaahay yiraahdo cid kasta kubadda cagta waqti leedahay waqtigeeda marka uu dhamaado cid kasta inta doorasho loo galaa inta doorasho gasho ayay heli kartaa haddii ilaahay u qoray marka inay ku sii riyooto wax fiican waay laakiin inay si xun u riyooto aadaan uga xumahay annaga waajibkeennuna wuxuu yahay in aan fulino wixii aan u dhaaranay haddii ilaahay yiraahdo ka taasaan naga go'an xilligii aan joognay oo 3 sano ahayd 2 jeer oo isku xigta waxaan aadna kaaf waa la og yahay siday Soomaaliya waqti ka hor ah jirtay insha Allah haddana waxaan rajaynaynaa sanadka markii saddexaad inaan kaaf ka qayb galno sanadka afraadna kuwaana soo gaaraya waxaan rajaynayaa marka in sidaas kubadda cagta ay horumarka ay hadda ku socoto ay hore ugu sii socoto